wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marweyne Jaamac Xirsigani ayaa xafiiskeeda ku qaabishay madaxda ugu sareysa hay'adda Oxfam Somaliland iyo saraakiil ka tirsan hay'adaasi waxaana wasiirka kulankaasi ku wehelinaya agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland iyo xubno kamid ah agaasimo waaxidada wasaaraddaasi waxaana labada dhinac ka wada hadleen xoojinta wada shaqaynta u dhaxaysa wasaaradda iyo hay'adda Oxfam iyo sidii loo ambaqaadi lahaa mashaariicaha ay ka wada shaqeeyaan labada dhinac waxaana kulankaasi ku soo dhamaaday afgarad sidaas waxaa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegtay wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland mar ay ka warrameysay waxyaabihii ay ka wada hadleen mas'uuliyiintan ka tirsan hay'adda Oxfam waxaa wasaaradda ay shir ballaaran uu ku dhexmaray wafti ka socotay hay'adda Oxfam oo hogaaminayeen madaxa Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u fadhiya Oxfam run ahaantii waxay ahayd booqashadan ballaarani inay ogaadaan ama u kuurgelida hawlihiina dhexmaray ee aanu ka soo wada shaqeynay sanadkii 2019 iyo sidoo kale waxa aan noo qorshaysan ama qorshaha ku talagalka ee aanu ka wada shaqeyn doono 2020 oo ay sees u tahay sidii loo meel marin lahaa waxna looga qaban lahaa horumarinta haweenka ee dhanka siyaasadda meel marinta kootada maxaan sheegay wax la qabashada naafada taageerada dadka gabooyaha iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ama bulshada inteeda nugul waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ba aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha Allah taala waxaanu isla qaadanay runtii shir aad u qiimo badan aanu rajaynayno waxtarkeedana inay bulshadu u aayi doonto aad baad u mahadsantihiin Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa.